Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum caruure. Waa habartiin shaqna shire. Maanta waxaynu baranaynaa haddii la yidhaahdo arkaanul islaam oo ah shanta wax ee laga rabo qof kastoo muslin ah inuu sameeyo. Ta koowaad waxa weeyaan in qofku uu yidhaahdo oo uu garto ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. taasi oo ah ilaahay subxaana wa tacaala waa keligiis oo ilaah kale ma jiro, muxamedna sallallahu calayhi wasalam waa nebigiisa iyo rasuulkiisa. ta labaad waxa weeyaan in qofku uu salaada tukado. ta saddexaad waxa weeyaan inuu qofku soomo bisha ramadaan. ta afaraad waxa weeyaan inuu qofku bixiyo zakada. ta shanaadna waxa weeyaan inuu qofku kacbada kusoo xajiyo hal mar noloshiisa haddii uu karayo.